Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada ku xiran janaalka layaabka media ee YouTube, kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena. Maanta waxaan kusoo qaadan doonaa nin ku xanibmay ATM machine gudihiisa. Ka hor inta aanan bilaabin muuqaalkan, fadlan like saar muuqaalka, subscribe na dheh janaalka. Aad ayaad u mahadsan tahay. Qisadeena maanta ayaan kusoo qaadan doonaa dhacdo ka dhacday dalka Mareykanka, gaar ahaan Texas. Dhacdadan ayaa ka dhacday ATM machine lacagaha lagala baxo sanadii 2017. Dadka ayaa sida caadiga ah lacagooda ugula baxayay ATM-ka. Dadka qaar ayaa la kulmayay halka ay ka sugayeen lacag, warqad ay ku qoran tahay fadlan i caawi, waxaan ku xanibanahay mashiinka gudihiisa, teelkayga ma haysto, fadlan ii wac mudanahayga. Qofkaasi ayaa ahaa nin farsameynaya mashiinka ATM-ka. Ninkaas shaqaalaha ayaa ka galay albaabka dambe ee mashiinka ATM-ka. Nasiib daro, albaabkii ayaa ku xirmay, moobilkiina banaanka ayuu uga soo tagay, mana haysanin si uu uga baxo meesha, ilaa qalin iyo warqad mooyee gacantiisa ku jiray. Markaas nin ka mid ah dadka kala baxayay lacagta mashiinka ATM-ka ayaa helay warqad ay ku qoran tahay caawi, laakiin nasiib daro wuxuu u qaatay inay baranki tahay. Haweeney lacag kala baxaysay mashiinka ayaa heshay markii dambe warqadii, waxayna wacday booliiska una sheegtay inay ka heshay ATM-ka warqad ay ku qoran tahay caawi. Booliiska ayaa soo gaaray daqiiqado kadib meesha. Sarkaalkan ayaa wuxuu maqlay cod ka soo baxaya mashiinka ATM-ka gudihiisa. Daqiiqado kadib, booliiska ayaa caawiyay ninkii kana soo saaray dabinkii uu ku jiray. Ninkan shaqaalaha ayaa ku xanibnaa ATM-ka gudihiisa muddo dhan 2 saacadood. Intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa muuqaalkeena maanta. Haddii aad ka heshay, ilaawin inaad like saarto muuqaalka. Haddii aad ka heshid mowduucyadan oo kale, qaybta commentiga nagula wadaag. Muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.